reaction keygana wuu soconaa mar kale idinku celinaa haddii ay dhacdo inaa iska soo waasho oo aniga reactionkaas aan kugu helo weliba waa kuu sii sheegaa haddii ay noqoto in reactionkaas aan kugu helo anigu ay taqaanin dulmiga ma jecli laakiin hadday noqoto adoo lagu qabo inaad kaliifka soo taagtaagta meelaha dee walaal qaali runtaa lagu sheegaa runtana ma diidi kartid mana dhihi kartid aniga caana ahay laakiin no one iga hadli kara ma leh dee walaal who are you kuu taalo xasan sheekh maxamuud iyo farmaajo laga hadlaya daase warka meeshaasuu ku dhan yahay warka meeshaasuu ku dhan yahay haddii xal anigu waxaan ahay nin xeerka ragga yaqaana maanta dhayna kusoo celceliyey looma baahna waa layla hadlay sida layla hadlay oo aan ku dhameeyey ayaan muhiim u ahayn in maaragtay gabar maaragtay aan sii wadwadno hadalkeeda oo video kale ah kasoo sameeyo oo aan xalay u qaatay ayaan still tii ku taaganahay diyaarna u ahay in hadduu ilaahay raalli ka noqdo xitaa videogaas markaan soo celiyo screenshooda ka qaadaa waan soo celiyo oo dacwad ahaanteyda ambilka ka xareeyay ugu soo noqdo inaan tiri doono hadduu ilaahay raalli ka noqdo sheekadana meeshaasay ku xiran tahay waxaa idin soo haray marka aan rabaa inaan idin sheego waxaa rabtiin qofkan yaa waaniyo waxaa rabtiin adduun waxaa rabtiin ay maanta waa idin jeedahay saa yeelaynaahay adduun maanta waxaa rabtiin naag jirkeeda ka ganacsanayso kaliifkeeda rabta inay ku noolaato ay intay meel soo fariisato wax idin sheegayso adduunkaasaa ku noolnahay guys that's it game is over wallahi meeshii u dambeysay baasha taagan tahay war anu been idin sheegi maayo maanta hadday ka soo baxdo familkeyga ilaahayow ha igu keenin alxamdulilah ilaahay wuxuu isiiyey famil aan ku faano sharaf leh karaamo leh gabdhana wada ciseeyo alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ninka ragga ah muruqahaas waaweyn ee ku yaalla iyo codkan weyn raganimada kuma ahan wallaahi raganimo kuma ahan ninkay gabar la dhalatay ragga lama sinna aniga qofkaan muu naga taganiyo ninkay gabar la dhalatay ragga lama sinna alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahu adaa mahad iska leh waxaan xabadka saas ugu taagayo oo aan meel kasta aan tago madaxayga iyo sankayga saas kor u yahay alxamdulilah ilaahu rabbi raxmaano adaa isiiyey gabdhana sharfa na qiimeeya midna loo qabay iyo mid kaleba alxamdulilah hadday xitaa ku jirto mid qabiilkayga ah wallaahi oo bilaahi oo tallaahi haddii la dhaa xitaa qabiil oo soomaalinimada laga soo tago diinu rabbulkacba intaan u tagaan lugaa qabsan lahay sidii hindida waxaan dhihi lahaa waa ku tuuga I will live for you Maqaar family please don't shake your eyes while you are wife please I will take left for the Maqaar family for you please I swear again wallahi oo billahi oo tallaahi Maqaar family uga bixi lahay diinta waa tan ka baxaa ama meesha ku nooshaa intaan tago aan ticket goosto waxaan dhihi lahay please you know walaalahayaadna soomaalinimo haddaan ugu ixtiraamay xitaa wiya see Maqaar nin rag lama doodi karo caabtaydiyaa tahay adiga nin rag hadal ma dhihi karo waryaa haddii aad qabiil ugu doodaysid iyada intaad u tagto aad barya laheed waxaad dhihi laheed abbaayo sharaftaadii aan nahay karaamadaani aan nahay please laakiinse waa u doodaa oo xumaanaan ku garab istaagaa been ha sheegin adiga gabadha kula dhalatay uma rabtid xumaan war aniga waa hadlaaniyo noola iga af soomaali badan inuu inta ku jiro ma aaminsanay ciyaalkan la yiri qabiilaa la difaacaa gifti lagu helaa ee ayagoo wada qaanjeer miirana aan dharka iska bedelay inta soo galay nothing waxaan kuu sheegaa adiga waxaa ku jecel qofka wanaagga kuu sheega أنا ولاد ميه I'm not ولاد أنا الشيخ مصطفى ويلكيس ميه ولاد ميه عيالك حافظة بل سرونتك ما جبناي رونتك ما جبناي وكل شيء هذا جبر كل دلتي عورة كل دلتي break time 1 minute وايه
sheekada marka waxay maraysaa Somaliland. Thank you. ninka ragga ah waa kan u danqada walaashii. waayahay ninka ragga ah waa kan xabadka u tunta walaashii. laskuma haysto walaalow. marka midaan ku weydiinaya waxay tahay adigoo fiirsanaya laba gifti oo aad TikTok ka heshid ayaad waxaad rabtaa in aad ku hor istaagtid ama garabka aad uga dhirbaaxdid qalad ee walaasha ku jirto oo cad. adigu marka jaraar waxba ma dhaantid. jaraar waxaa la dhahaa ninka naagaha iibiya. wallaahi oo bilaahi oo tallaahi haddii gabar walaashaaya ayadoo la qabo ay nafteeda ixtiraami weyso ee public waxyaabo aan qurux badnayn ku sameynayso, haddii aad taageeraysid ay dhalabaa tahay been ha u sheegin gabadhaas. waayo walaashaa adiga kula dhalatay maanta ma dhehaysid ayadoo la qabo TikTok intay imaado dabada ha luxdo. wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaadan dhehayn. runtaa taas ah. wallaahi oo bilaahi oo tallaahi saddex magac ilaahay baan ku dhaartay ma jiro maanta. carar waa kee car waa kee lifekaas intuu maanta soo qabsado idhihi karo waniyo waxaa sheegayso waa ay qaldan yihiin. noodaa inantayada haddii la qabo oo ayadoo la qabo xitaa see doonta u nikinayso way ku saxan tahay. hal midaan weydiinaa brother, walaasha adiga kula dhalatay saacadan laga bilaabo aniga ku hortaaganaa qabo siikeenaa qabo meelaha furtada ma taagaysi. laakiin tusaale ba iska dhe waraa tusaalaha xitaa ay ugu darin. walaasha nin kala qabo boora. walaasha ninka kala qabo aad waxaad aragtay ayadoo maalin ilaahay keeno public inta imaada nikinayso. Faisal, thank you Mr. Faisal way, thank you. walaalow marka walaasha waxaad u rabin see gabar kugu qabiil ah ugu rabe. runtaa isku sheegno. war daarood gifti waa idin siinayaan. always na garabkiina ku yihiin. waa dadkiini lama diidano. waa walaalaheen waa jecel lahay. haddaad qabiil u bedelaysaan macnaha. laakiin hal mid iiga jawaab. middaa iiga jawaabaysa waxay tahay ma waxaad isku nabtaa ood xabadka u garaacataa markaad gifti ka rabtid markii ay noqoto in walaasha aad sharaftid garbasaar aad u saartidna tan kugu qabiilka ah ku socaa leedahay miyaa maanta ta adiga kula dhalatana maadan ka yeeli lahayn. wallaahi alcadiim taasaa runta ah. wallaahi suma bilaahi suma tallaahi taasaa runta ah. been idinma sheegay aniga. taas aa runta ah. marka aniga gabadhaa walaashii xarash kale uma haynin, xumaan kale nagama dhexaynin, aan ka ahayn in Mrs. Wall dhifiq dabacasaar oo aan reaction ka bixinayay ay soo dhex gashay. dhifiq waxba ma dheera, dabacasaarna waxba ma dheera, Mrs. Wallna waxba ma dheera. dadkay la siman tahay. maadaama ay dadka la siman tahay, haddii aan ku iri waa xasuustaa waxaa dhahay horta kaalay gabadhaan weli waa la qabaa maano because waa shakiyey alaabaha ka dareega ay sameynaysay heesta iqriyada iska soo duubtay ugu dhufi iyo hebelow. waa shakiyey waxaan iri horta gabadhaan weli ma la qabaa. gabadhaan haddii la qabo ee weli marwo tahay qaladka iyada maska lahaan iri ninkeedaa leh. ilaahay baa idinku dhaarshay ma been baa idin sheegay. ilaahay baa idinku dhaarshay gar ilaahay bay leedahay. gabadhaan miyaan caayay? waa maya. gabadhaan maanan caayin. iyadana afka kumaan soo taagin. walaalkeeda xala qiraayay oo ii sheegay oo dhahay war walaal gabadhaan maad caayine iyadana lamaad hadlin ninkeedaad la hadashood ku tiri. gabadhaan haddii weli la qabo iyada qaladka maskalaha ninkeeda waay. waayo gabadha markay marwo tahay sida ay iyada yeesho ninkeeda ayaa sabab u ah. waa run asaaba caddeynayo. waa naagteedu free bay ii tahay u lahaa ku soco brother. hadda ka bacda taageera u noqaaba laaga u saaraa ninkiska number 1 anaa taageero ah. abba raalli noqo haddaan kaa hadlay hadda ka bacdina laagan kula dhaafaa caabmiya saacadan laga bilaabo waaba kugu haystaaba soo niiki waa fiirsaa. ballan waayaan ku yiri inaa runta kuu sheegay oo walaalnimo kaaga naxay soomaa wax liigu haysto noo soo niiki. fiidiyooga waa tiri hudda raalli noqo abbaayo. fiidiyooga hadda soo deysidna wallaahi kumantiyaa ka soo bixina. waan kula niiki xataa ku soco ama joogti le intaas ma rabtido okay waaya waaba sameynaa.
saasaan sameynaa ku soco ani iyo kan qabiilka kugu doodaya markaas wax misdhaanno laba jaraaraan nahay laba jaraar wallaahi oo bilaahi haddaan sameeyo aniga iyo kan qabiilka kugu doodaya saa hadda sheegayo labadeennaba laba jaraaraan nahay labadeennaba laba jaraar oo naagaa iibiyaan nahay haddii aan kugu sheegin damiirnimo waxaan u sheegi lahay gabadha ila dhalatay gabadha igu qabiilka ah in adeertay gabadha Soomaali jinsiga ila ah waxaan u sheegi lahay haddii adiga aan kuu sheegin wallaahi oo bilaahi jaraar ah marka abaayo aniga ma dhihi karo nin damiir ilaahay siiyaan ahay walaashay waxaan dhihi lahaa ayaan ku dhahay abaayo waana laga yaabaa adduun tagay baan joognaa in aad qalad u fahanto marka waxaan ku leeyahay aniga xumaan gaara kuma qabin gardara gaara kuma soo aadin aan ka ahayn Mrs. Wall dhifiq dabacasaar oo reaction aan ka bixinayay oo adiguna la socotay reaction-kan aan ku soo dhex dhacday inta ay sheekada ku eg tahay waxaan idin sheegayaa dadkiina kale meelaha